dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay gashay xaalad doorasho waxa socda dhaqdhaqaaqa xulista xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee aqalka wakiilada koonfur galbeed oo gaaraya 95 kursi saddexda gobol ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay ka kooban tahay Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose ayaa ah deegaan doorashada laga soo xulayo xubnaha ka mid noqonaya aqalka wakiilada iyagoo dalbanaya in ay helaan codka kalsoonida bulshada ay matalaan. Cabdullaahi Cabdulle Xasan Gaduudow waa musharax u taagan inuu ordo kursiga xildhibaanka Shabeellada Hoose gaar ahaan bulshada Hiif Mugge ee deegaanka Dawanle. 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ahaa xildhibaan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Mar kale ayuu u taagan yahay inuu noqdo xildhibaan si uu u meelmariyo qorshayaashiisa u degsan ee horumarinta bulshada uu matalo. Waxa uu dirayaa fariin ku socota bulshada Dawanle ee Shabeellada Hoose taasoo ay hoos tagaan 109 tuulo. ilaa mahadle deegaankaas u baahan in wax ka qabto wax weyn ka qabto dadaalkeeda galo horaaba uu jiray laakiin haddii si dambeeyo inaan dagaalkaas si kordhiyo diyaaran. Cabdullaahi Gaduudow waxa uu dhashay 1963 waxa uu ku dhashay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. waa oday rugcadaas siyaasadeed ah oo fahamsan danaha iyo daryeelka bulshada deegaan doorashadiisa. waxa uu qorsheynayaa haddii uu mar kale helo codka kalsoonida bulshadiisa ayna u doortaan xildhibaan ku matala aqalka wakiilada koonfur galbeed Soomaaliya in uu hirgeliyo mashaariicdan. Shabeellaha Hoose beerleyda inaan u qabano karnaalo aqaf aqifay u keeno wax alle wixii oo ilaa mahadle banaanka looga baahan yahay dadaalkeeda inaan galna qabano dhinac badane inaan doomin geyno haddaba waxbaa u bilaawna waxbaa u geyni 20 kood doomina haddaba soo bilaawna ilaa mahadle qaar waa bixin qaarna hadda waa processka waa wadnaa kan kale wixii kale noo yimaadaan hadda waxbaa sugu hayna wax badanaa sugu hayna ma kaste jeyna wax ka sugayna hadda hoogaa udurkan fayraska ayaa meesha ka dilaacay marka hoogaa yar udurkan xaqiisay hoosh u joogo marka doomin hadda waxbaa noo yimaadeen waxbaa bixine wax kalena waa sugu hayna waa bixinayna inaan wax u qabano dekedaas la furo doominkaas wax limihii meeshaas howlgal looga baahan yahay wax ka qabano diyaara ummadda anaga ka soo jeedo reer Shabeellaha Hoose gaar ahaan shanta aleema gaar ahaan beesha reer Hiif Mugge mar lamaad ama mar saddexaad ama mar afaraad waxaan ka codsanaa inay booskeeda igu soo celiyaan iyo soo doortaan wixii oo hore u qaban waaya hadda ayaa zaa'id u qabanaa. bulshooy doorashaa jirta ee dooro mudane miigan oo ay u meelyaalaan dhammaan baahiyaha bulshada deegaan doorashadiisa isagoo u kala hormarinaya sida ay muhiimad u kala leeyihiin ee dooro Cabdullaahi Gaduudow ha u shaqeeya dantiina iyo deegaan doorashadiisa. koonfur galbeed Soomaaliya ha guuleysato.